maxaa iimaanka suga maxaa taxqiijiya maxaa ka dhabeeya sidee baynu iimaankeenna u xoogayn karnaa sidee baynu uga bixi karnaa inaynan shaki laynugu abuuri karin sidee baynu qantaradaasi u weydaaran karnaa sidee baynu ilaahay rumayntaynu rumaynay ama rasuulka rumayntaynu rumaysanay ama qur-aanka saynu rumaysanay uu u noqon karaa xaddu rusukh inaynu gaadhno waxaa ugu horreeya bay culammadu yidhaahdaan barasho aad ilaahay baratid iyo sifaadkiisa ilahay qur-aanka wuxuu leeyay innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka cabsado oo keliya addoommadiisa cilmiga le baa ilaahay yidhi markaad ilaahay si dhaba u barato ee asmaadiisa baratid cilmigu buu yidhi imaamu ibnu rajab waa laba nooc midi waa inaad ilaahay baratid iyo wuxuu xaq u leeyahay ee asmaa ilxusna iyo sifaat ilculaa ah iyo afcaashiisan baahirkee waaweyn taasi waxay keensanaysaa buu leeyahy inaad ilaahay weynayso oo ka cabsatid oo jeclaatid oo tala saaratid oo qadaaga iyo wuxuu xukumo raalli ku ahaatid yacni markaad rumayso ilaahay inuu caliimiyey oo khabiiriyey oo xakiimiyey oo raxmaan yahay oo raxiim yahay oo nolosha tan oo dhan isagu maamulo waxay noqonaysaa inaad isaga isu dhiibto si dhaba u rumaysid macrifada labaad waxa weeyaan buu leeyahy almacrifa bima yuxibuhu wayardaah waa cibaadaadkii inaad barato ilaahay muxuu jecel yahay oo raalli ka yahay muxuu necab yahay oo ka cadhooda caqaa'idda baatilka ilaahay waa necab yahay macaasi oo dhan ilaahay waa necab yahay wixii khayr ku jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay idan cilmiga waxtaraa waa cilmiga rabbigaa ku bara ee aad baratid inuu keli yahay ee keensada inaad isaga weheshato inaad ka xishooto inaad u caabuddo kaannaka taraah sidii oo aad arkaysa inaad u caabuddo saa awgeed ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay wuxuu kor yeela kuwa iimaanka laga helay idinka mida iyo kuwa cilmiga la siiyey waxaa ilaahay ku tilmaamaya markhaatigiisa iyo markhaatiga malaa'igta iyo ululcilmigu israaciya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay ina leeyahay faclam annahu laa ilaaha ila allah baro ilaahay inuu keli yahay cilmigaasi qofka la siiya waa qof khayr la siiyey nebigu wuxuu leeyay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay khayr la doono diintiisuu baraa idan qofku inuu barto diintiisa iyo wanaaggeeda iyo maxaasinteeda sharcigeeda iyo qurux badnidiisa axkaamteeda iyo wanaagsanaanteeda akhlaaqiyaadkeeda iyo aadaabka fiican ay leedahay markuu si fiican u barto qofku wuxuu helayaa iطminaan ilqalb ilahayna wuxuu leeyahy walakina allaha xababa ilaykum aliimaana wazayanahu fii quluubikum dadka mu'miniinta dhabta ee qantarada tan ka tallaabay waa kuwii cilmigoodu uu dhaxalsiiyey alla ka cabsi hadduu cilmigu alla ka cabsi ku dhaxalsiin waayo faa'iido badan ma leh nin culammadii zuhaadee laga dambayn jiray ee macruuf ilkarakhi la odhan jiray ayaa imaamu axmed ibnu xambal imaamkii weynaa ee fiqiga iyadoo qola la fadhiday waxay idhaahdeen kaa kale iyagoo xamanaya yidhahdeen innahu qasiiru lcilm cilmigiisu ma badna bay dhahdeen wuu cilmi kooban yahay imaamu axmed baa la hadlo wuxuu yihi war amase waxba ku hadli maysaane amsik buu yidhi caafaaka allah wahal yuraadu min alcilmi ilaa maa wasala ilayhi macruuf oo cilmigaba mayaa lagu falaya ninkani wuxuu gaadhay in la gaadho mooyaane cilmigu waa kii ilaahay kugu xidhan ninkana ilaahay buu ku xidhan yahay saa daraaddeed cilmigu waa ka rabbi kugu xidha waxyaabaha iimaanka xaqiijiya waxaa ka mid a qur-aankuna in badan tilmaamayo alta'amul waltafakur fii aayaati illaah inaad u fiirsato oo eegtid ilaahay makhluuqaadkiisa kan iyo siduu u abuuray wax weyn bay tilmaamayaan oo qur-aanka in badan baa ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa war eega makhluuqayga qof haddaad rabto aqoontiisa inaad ogaato waxaad ka garanaysaa sancadiisa socankaa maaha haddaad aragto gaadhi si fiican loo sameeyey waxaad garanaysaa injineerka sameeyey inuu yahay maxay kur injineer haddaad aragto daar loo dhisay si khayaal oo hariiba
waxaad garanaysaa ninka bahashatan sameeyey inuu yahay nin maxay aqoon fiican maadada tan u leh haddaad aragto dayuurad si wanaagsan u kacdo si wanaagsan loo sameeyey ama lasoo bandhigo la waa dayuurad dagaalo intaasoo kilomitr bay jaraysaa intaa waxaad garanaysaa cidda dejisay khubara inay yihiin waxay idhahdaan masnuucaadku waxay markhaati ka yihiin khibraddii iyo aqoonta cidda samaysay waa markhaati aanad u baahnayn markhaati kale kownkan iyo siduu u dhisan yahay haddaad markaasi eegto ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu abuuray universka dhammaantii hadday xidigatay hadday dhultay hadday badtay hadday hawo tahay qaabka ilaahay u abuuray isugu xidhay waxay tilmaamaysaa cidda samaysay duu khibra wa cilm wa qudra inuu yahay ilaahay baa wuxuu ina leeyahy ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaaayaatin liuli lalbaab cirkan iyo dhulkan habeenkan iyo maalintan iyo isweydaarkeeda waxay aayada calaamaad ay wax ku gartaan bay u yihiin kuwa caqliga le baa ilaahay yidhi kuwa aan caqliga lahayn u fiirsan maayaan bes cadceeddu dee way soo baxdaa that's all laakiin ma oga duniduba inay ku nooshay cadceeddan uun waxaynu cunnoo dhamme xaggay ka yimaadaan warshadda ugu badan ee bini aadamka quudisa waa caleenta dhirta saaran waa warshadda ugu weyn ee bini aadamka quudisa dhirtan caleenta saaran waayo dhirta waxa cunnada u samaysa caleentaa yari waxay samayso ayuu geedku cunaa oo xooluhu cunaan oo dadku cunaa oo noolahoo dhammi cunaa noolahoo dhan warshaddaa yar baa quudisa warshaddan yarina ma shaqaysa hadday cadceed weydo idan waa fi samaa'i risqikum wamaa tuucaduun baa ilahay yidhi arsaaqdu xagga sare idinka jirtaa baa rabbi leeyi iyo wax laydin yaboohayba cadceeddan haddaanay meeshii joogin nolole ma jirteen laakiin qofka caamada ahi cadceeddii inay soo baxdo iftiin laga helunbuu u arkaa that's all ama haddaad aqoon leedahay cadceeddan iyo qiimahay ku fadhida iyo hawadan iyo qiimuhu ku fadhiya iyo nolosha tan ilaahay aayaadkan u fiirsada buu leeyahy u fiirsiga aayaadkani muxuu keenayaa wuxuu keenayaa aayadda ku xigtaa waxay tilmaamayso aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ما أنت وحوقتين أقول هذا theoretical physics كورما ترند كيو الصعدان متكمل أستراليانا 1974 بوحو قرأ research ير أو كجهد ضيا وحنا يمكن بحيان anthropic principle المبدأ الإنساني anthropic principle كو حويان universe kan buu leeyahay siduu u samaysan yahay wuxuu ku salaysan yahay qofka bini aadamka noloshiisa ilaahay quraanka in badan buu inoogu tilmaamay Soomaa imisa aragteen wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard imisa ku aragteen quraanka kownkan inagu musakharinooyay inaga la inoogu talagalay ninkan markaa isagu scientifically ayuu wuxuu u tilmaamayaa systemka universe-kani u dhisan yahay inuu yahay wax waafaqsan qofka bini aadamka haddii wax la bedelo buu leeyahay wax kastoo la bedelaa effectkeedu waxay keenaysaa nolosha bini aadamka inaanu suurtoobin marka systemkani saas u dhisan yahay saynisyahanadu u bilaabay qadiyadda inkastoo culimada muslimiinta iyo dadkii horeba ay ka warrami jireen waxaan sheegayaa qoladan dambe malaaxidada ee theoretical physics ka warranta ayuu baabkan furay dabeetana researcheska way isdaba galeen waa kan mid qoray the blue planet oo kaga warramayo in inaga la inoogu talagalay waa kan mid kale qoray the six numbers lix number buu leeyahay hadday wax iska bedelaan duniduba may jirteen six forces buu ka warramayaa inta badan afarta force la yaqaana iyo laba masalo kale uu tilmaamaya waa kuwan wada tilmaamaya that's why mid ka mid ah wuxuu yidhi waxaad moodaa kownku universe-ku inuu ina sii ogaa inaynu soo soconno yacni innaga laynoo sii diyaariyey buu leeyahay mid kale wuxuu leeyahay universe-ku wuxuu u muuqdaa waa tailor made for men buu leeyahay dawarwalaabaa inoo tolay marada lagu tolaa soo dhan walba kaama leeka dad mar halka ka iibsato waxa laga yaabaa gacantana inay kaaga dheeraato halkana ka leekaato ama inay qiyaastaada noqonin laakiin haddii dawarwala ku tolo maxaa dhacaysa meel kasta way ka leegtayde
xulay dunidan isay u taalo waxaad moodaa in inaga la inoo tolay nimanka weedhahan le waa theoretical physics nimanku takhasusay ma aha muslim iyo wax ka ag dhowtoona laakiin waxay leeyihiin aqoontani waxayna tusaysaa kownkani inuu yahay mid laynoo diyaariyey ilaahayna qur-aanka in badan wuxuu ku celcelinayaa oo aayaad badan oo qur-aani waxay tilmaamayaan inaynu kownka daraasayno wa fii anfusikum afalaa tubsiruun wa fi lardi aayaatun lilmuuqiniina wa fii anfusikum afalaa tubsiruun qul induruu maada fi الsamaawaati wاlard wma tugni اlaayaatu wاnnuduru can qowmi laa yu'minuun ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu الnaas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بإله إليه تإلهي الدنيا كور ما يسدوا أبوري يا إلهي وحلا وحى آية وسجين قوة عقلي عليه بل إلهي وحين ليه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت warmaan ay eegin baa ilaahay leeyay gela sida loo abuuray gel waa xayawaan unique ah hadday saynisyahanadu dib u daraaseeyeen wixiisoo dhamma waa unique hadday tay temperatureka jirhkiisa hadday tay kuruskiisa iyo siduu biyo uga dhigto hadday tahay indhihiisa oo laba baal leh oo xayawaanka kale la mid ahay laba baal oo isdul saaran buu leeyahay hadday tahay afkiisa iyo qaabkuu samaysan yahay hadday tahay luquntiisa iyo balance waa xayawaanka qure fadhi lagu rari karaa bay yidhahdaan xayawaanada kale iyagoo taagan baa la raraa laakiin xayawaan kale isagoo fadhiya haddaad rarto ma kici karo luquntan dheeri waxay samaysaa balance bay u samaysaa markuu kacayo waa birtaa ay nimankan wax dhisaayo kale xagga dambe kaga xidhaan yacni waxay u samaysaa balance inuu kici karo وحيوان wax kasto ay ka daraaseeyeen waa qariib hadaad akhrido maqaal quro laga warramayo ilaahay baa inoo tilmaamay wuxuu leeyahay afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat idan waxa leenahay waxa soo nusuusi waxa ay tilmaamayaan inay tahay waxyaabaha iimaanka qofka kordhiya haddaad practical u sii aragtana nebi ibraahim muxuu ilaahay weydiisanayay waid qaala ibraahiimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta qaala awalam tu'min qaala bala walaakin liyatma'ina qalbii buu yidhi ilow saad wuxuu abuurtay tus buu yidhi waxaa la yidhi maad rumaysnayn ilaahay wax abuuro waan rumaysnay buu leeyahay kaasi waa cilmi nadariya laakiin waxaan rabaa buu leeyahay inaan liyatma'ina qalbi qalbigu inuu xasilo aan si fiican u sii arko waxay culimmadu yidhaahdaan markaa aqoontan barashadeedu waxay keentaa itminaani alqalb hadduu qofku sidii la rabay uu u barto ama se uu u sugo waxaan leenahay oo kale iimaanka waxaa kor u qaada atadabbur fi aayaatihi almasmuuca watafakuru fiiha kuwani waa aayaat ullahi almanduur aayaadka ilaahay la arkayo qur-aankuna waa maxay waa aayaadka ilaahay la akhrinayo la dhegaysanayo la maqlayo waa warkii ilaahay qur-aanka markaa barashadiisa barashada kama warramayo sida loo akhriyo in la barto oo lagu codeeyo waxaan ka warramayaa in la barto waxa uu sheegayo ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين بإلهي إلهي وحولي وحنو كوسود الجنة كتاب كان تبيانا لكل شيء وحول بقوة عضينيا وهدى ورحمة وبشرى هنون ينحرسنا وأدتك مؤمنين هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه إلهي وحله هو كتاب بركيسنا نجي سورغنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة برشاد القرآن كوسفي عن الله برتا وأقون سماوية وإلهي عليم كخبير كها يعلم السر في السماوات والأرض وسودة شيء وحفظوا دانسة قفكو مداركتي علم جينا بلارته qur-aankaasi ku jiraa inay qaacida filosofiyaad u baahanto nolosha wax ka tarta isagu ku jiraa
hadday tahay dhaqaale, hadday tahay siyaasad, hadday ka tahay, laakiin wuxuu u baahan yahay caqligii kala soo bixi kari lahaa. kullama akhriskaygu uu bato oo aan funuun kale oo kala gedisan akhriyo oo aan kitaabka qur-aanna dib u akhriyo waxaanan fahmi jirin baan dib u fahmaa. kullama aqoontayda kale ay korodho oo aan qur-aanka dib u akhriyo waxaan awal iska dul mari jiray oo si uun aan u arkaya kooban ayaan u arkaa isagoo waxa la sheegaya uu ka weyn yahay intaan moodayay anigu markii hore. laakiin waxa koobnayd aniga markii hore intaan ka fakaraya ama ka arkayay. dadkuna waa wada nooca. kullama uu qofku qur-aanka dhuuxo oo uu dhaadhaco oo si wanaagsan uu u barto waxa u furmaysa aafaaq aanad malaynaynin. سawgeed baa ilaahay wuxuu inagu boorinayaa kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati. kitaabaan soo dejino barakaysan. maxaa loo soo dejiyey? ma in la akhriyo qura maya, liyadabbaruu aayaatihi baa ilaahay leeyahy inay u fiirfiirsadaan. afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruuna alqur'aana walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira. xataa waxay idhaahdaan falsification tests oo jaamacadka laydinma dhigo markaad research qorto maxaa lagu sameeyaa? researchka hadduu research rasmiya yahay waxaa lagu publish gareeyaa any scientific publication baa lagu publish gareeya. maxaa loo publish garaynayaa? in lagu soo naqdiyo oo la arko godoloodaladooda. haddii uu sugmo markaasi iyo naqdigaasi uu u adkaysto wuxuu noqdaa research rasmi oo la aqbalo. research rasmiya oo la aqbalo. qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa war qur-aankan u fiirsada. ilaahay cid aan ahayn hadduu ka iman lahaa isbaraanbarin badan, godoloolooyin badan baa laga heli lahaa baa ilaahay leeyahy. cid walbayba isku day baa laleeyahy qur-aankan waxba ka soo heli mayside. waa ku Gary Link, professor of mathematics in Canada. Gary Link la yidhaahdo waa nin muslima hadda, laakiin markaa hore Christian apologist buu ahaa, qoladan kristanka u dooda. 1975 meelahaasiba wuxuu yidhi waxaan isku dayay muslimiintan yaree jaamacaadka joogaya waxa kan kitaabkoodu inuu qaldan yahay horta maa tustid. qur-aanna hore omaan arag buu yidhi. qur-aan baan doontay buu yidhi translationkii si aan u buriyo, laakiin intuu aniga i buriyey baan islaamay buu leeyahy. isagu qur-aanka marka hore wuxuu u qaatay inuu buriyo. akhiiranna lecture buu leeyahy caan oo la yidhaahdo the miracle of the Quran la yidhaahdo, mucjisat alqur'aan, oo kaga warramayo isagu wixii uu rabay inuu sameeyo iyo wixii ka soo horbaxay inay sugayaan inuu qur-aankani ka yimi cidaan bini aadam ahayn oo qur-aan soo degay 14 qarni ka hor. idan waxaan leenahay qur-aankan haddaad u fiirsato ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa inuu yahay waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan. aayaadka qur-aan haddii lagu akhriyo iimaan buu kordhinayaa. haddaba waxaynu leenahay waxaynu u baahannahay inaynu aayaadkan kowniga u fiirsanno.